bal markana aynu u guda galno doodii caawa oo khamiisa waxaanu ku eegaynaa sanad kadib isbedelkii ka dhacay gobolka Soomaalida ee Ethiopia maxaa ka hirgalay ilaa hadda markaanu eegno dhanka siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo maamulka muddadaasi waxa barnaamijka naga qayb galaya Faisal Roble oo siyaasadda geeska Afrika faalooda oo khadka telefoonka uga jira San Diego oo wadanka Mareykanka ah iyo Maxamed Shaale Isaaq oo ah isna مسؤول كترسن مدحدا gobolka Soomaalida ee Ethiopia oo markaasi isna magaalada Jigjiga qadka uga jira labadiina waad maasantihiin waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa Maxamed Shaale Maxamed muddadaasi sanadka ah hadda laga joogo isbedelka uu ka dhacay maxaa la taaban karaa oo dadka gobolkaasi Soomaalida maaragtay ku soo kordhay ama ka hirgalay aad baad u mahadsantahay waxaa la ogsoon yahay sanad ka hor maalmo August sanadkii hore deegaanka xaaladdu ku sugnaa dhinaca amniga iyo dhinaca horumarka iyo guud ahaan xaaladda guud ee deegaanka waxaa la ogsoon yahay dhibaatooyinka ka jira deegaanka ee ku aadanaa xaqa xuquuqaha bini'aadanimo iyo kuwa dimuqraadiyadeed iyo xagga horumarka ka jira deegaanka oo la ogsoon yahay guud ahaan isbedelkii dalka ka dhacay in deegaanka la jaan qaadan way suurtagal weyday iyadoo taa laga duulay guud ahaan hogaaminta xilliga joogtay ee hoggaantada xisbiga dimuqraadiga Soomaalida hogaaminaysay ma noqon kuwo hoggaansama in baahi su'aalaha shacabka ka jawaabaan isbedelka dalka Itoobiya guud ahaan ka hirgalay mid wuxuu ahaa muddo badan ay shacabka Soomaalida soo jeediyeen ha ugu horeeyay shacabka deegaanka Soomaalida iyadoo la ogsoon yahay wadanka sida guud dalka isbedel nabadgelyo laakiin isbedelka waxaa loo fahmo u baahan in shacabka Soomaalida hormuud u ahaayeen oo ay codsanayeen inay helaan xuquuqdooda bini'aadanimo kuwa dimuqraadiyadeed iyo si sinaan inay shacabweynaha kale Itoobiya xuquuqdooda ay u qaybsadaan ismaamulka deegaanka ka jirnay u madax bannaanaadaan su'aalaha shacabka cabanayeen hogaaminta xilliga joogtay iyadoo xiriir aan nidaam ku dhisnayn dalaha hogaaminta gaar ahaan xagga ciidanka marka Maxamed Shaale tii hore aan ka soo gudubno sanadka oo maamulka cusub uu joogay maxaa qabsoomay oo la taaban karaa baan ku iri marka laga reebo xilalkan aad ninka leedii magacaabay isbedel korto guud ahaan waxa la fahmo u baahan haykalkii dawladnimada xilliga jiray muu dhisnaa si horumarka wax looga qabto nidaamka dawliga ee jiray xilliga oo dhan uu burburay isbedelka intuu kadib soo dhisay qaab dhismeedka shaqooyinkii loo baahnaa ee xagga horumarka marka la barbar dhigay muddooyinkii la soo jiray deegaanka wax badan baa laga qabtay guud ahaan markaan qiimeynay sanadka 2011 tasay taariikhda Itoobiya hadday tahay dhinaca waxbarashada hadday tahay dhinaca caafimaadka hadday tahay dhinaca biyaha shaqooyin badan baa laga qabtay waan gartay Maxamed Shaale waan ku soo noqonayaa Maxamed waan ku soo noqonayaa aan soo galiya khadka Faisal Roble oo uga jira dhinaca wadanka Mareykanka Faisal waxaasi uu sheegayo Maxamed uu leeyahay waxbarashadii caafimaadkii wax walba waxa laga qabtay ma la qabtaa adigu gobolkana waa tagtay runtii waad mahadsan tahay Mr. Shaalena waan soo dhaweynayaa horta qorshe ahaan way adag tahay in la yiraahdo sanadba qorshe iyo planning waxa la yiraahdo wax laga qabtay natiijana la tusi kara aan ka ahayn kow qorshayaashii hore loo dhigay maxaa laga hirgeliyay ma la maalgeliyay maxaa ka socday inta un baa lagu xisaabtami karaa waayo qorshuhu sidiisaba 3 sano 4 sano 5 sano wax ka badan buu qaataa marka taa waxba isku daalinayno horta waxyaabo waa hirgaleen runtii sida uu sheegay mudanuhu oo ay ka mid yihiin tacaddigii badnaa ee dalka ka taagnaa in ay wax badan iska dhimeen runtii arrin la soo dhaweeyana ah laakiin waxyaabo ka dhimanna way jiraan oo sheekada ugu badan ee gobolkaas dadka ama ku nool ama ka faalooda ay ka hadlaan waxa weeye musuqa baahay iyo runtii rajadii la qabay oo meeshii laga filayay aan taagnayn rajaduna sideedaba way ka qiimo badan tahay lacagna laguma qiimeyn karo wax kale laguma qiimeyn karo waa dahab ummaddu ay filanaysay tiibaad moodaa mawliido in ay arrintaasi hoos u soo dhacayso marka hadda ma aha waqti la isku daaliyo barnaamijyadii hore u dhignaa ama iyagu hadda yagleeleen maxaa ka suuroobay because qiimeyntu waqti badan bay qaadataa laakiin waxaa lagula dootami karaa un musuqa hadda ka taagan iyo nabadgelyada u hirgashay labadaa in la isbarbar dhigo
iyo runtii dowlad deegaanka nidaamkii dawliga oo weli si fiican oo hana qaadin. waan gartay laakiin meel dheer baa laga yimid Soomaha Faisal haddaad eegto hadda warbixintii goorwadan sii deyn oo kale xabsigaasi jeelogaadeen oo kale la xiray oo tacdiyo badan ay ka dhici jireen iyo markaad eegto furfurnaanta xagga siyaasadda ee wadanka ka dhacday. absolutely boqolkiiba boqol taas waa run weeye madaxduna way ku amaanan yihiin ma aha oo kaliya ta madaxda gobolka laakiin ilaa federaalka in furfuraantaasi ay soo hoyeen jiraan laakiin caqabado hortaagana way jiraan marka labada waa in la isku miisaamaa laakiin lama diidi karo in gobolkani uu ka takooraa gobolada kale Ethiopia marka la eego xuquuqda insaanka tacaddi aad u badan oo sanado badan soo socda aynu ka sheekeyn doonaana hadda laga baxay lagana nastay waa ku raacsanahay taas. waan gartay waa mahadsantahay bal dib ugu laabto madaxa xarunta dhexe xisbiga talada ismaamulka Soomaalida Maxamed Shaale waad maqlaysay wuxuu leeyahay Faisal Roble muddo sanad way kooban tahay oo qorshooyin laguma habeyn karo laguma dejin karo adiguna waxaad taxaysay intaasoo mawduuc oo waxbarasho iyo dhaqaale iyo caafimaad wax laga qabtay marka xogaa waad ka badbadinaysaa soo lasma oran karo maxamed waxaan umalaynaa waan ka xunnahay qadka ayaa ka fariistay waxaan ku laabanayaa Faisal marka isbedelkaasi dhacay waxaa tiri ilaa federaalka ma loo nisbeyn karaa abi iyo ra'iisul wasaarahan cusub ee wadanka qabsaday ayaa waxaan sabab u ahaa gobolka Soomaalida kaliya ma waa wax Ethiopia dhan ka dhacay waan ka cudur daaranayaa Farxan inaan magacaaga markii hore moodid ku khaldamay waana soo dhawaay Farxan dib ma laha absolutely Soomaalida si fiican sheekada loogu sheekeeyo weeye furfuraantan siyaasadda Ethiopia ka dhacday waa wax ra'iisul wasaare Abiy Ahmed la yimid maxaabiista la sii daayay jeelasha la sii daayay la xiray dalka oo dhan ayay ku baahsan yihiin marka in Soomaalida runta loo sheego oo la yiraahdo madaxweynaha deegaankuna ma uu keenin xisbiguna ma uu keenin waa hawo hadda ka socota dalka Ethiopia oo dhan inagu waxa kaliya ta aynu ku dhaanaa kuwa kale waxa weeye dhibaatadii dagaalkii Oromoda iyo Soomaalidu markuu hadda isir taagay nabadgeliyada ay ummadda Soomaaliyeed iyadoo hanatay baa badan iyaduna ku tashatay sida oona la soo kale in dagaalo iyo xabadaanay ka dhicin waad mahadsantahay Faisal Roble aan dib ugu laabto Maxamed Shaale qadka hadda noo hagaag u malaynaya Maxamed adigoo si kooban u soo sheegay waqtigan uu naga dhamaaday maxaad is leedahay dadkii waa la isku soo keeni karaa oo kuwii hore iyo kuwii dambe iyo waxaan colaadahan jiro dhan waad isku wadi kartaan oo waad mideyn kartaan oo hor yaala horta waxaa fiican walaalkay Faisal siduu sheegay qorshaha aan ka hadlayno dawladda u baahnay qorshaha aan ka hadlayno waa kii sanadka qorshaysnaa waxba ka qabsoomay baan leenahay qorshaha shaqo fiican baa laga qabtay ma qiimeeyeen 5 sano 10 sano isbedelka lagu keeni kara laakiin qorshaha sanadeedka wax badan baa laga qabsoo isaga sheegay hana marka uu dib ugu soo isbedelka dalka ka dhacay xisbiga wasaaraha Abiy uu ka yahay prime minister uu ka yahay chairmanka iyo xisbiga deegaanka Soomaalida ka tagay waa laba xisbi oo baawadaga dalkana ka wadaray deegaanka u gaar marka in la yiraahdo xisbiga korada wuxuu keenay shaqada uu qabtay xisbigana ma keenin arrin is qabanaysa Maxamed Shaale aad baad u mahadsan tahay waa ka xunahay waqtiga naga dhamaanaya